xildhibaanadii maalin hore loo yimid oo dowladdii hirshabeelle looga yimid oo soo dhoweynoon eerboorka u tagnay haddana dowladdii hirshabeelle ayay waxaynayn ahayn ku sheegeen miidiyahay gashay arrintaasuna waxay ahayd arrin xun oon dadka ka dhexayn oon dowladnimada ku fiicnayn waxbana ayna ka jirin sidaas daraaddeed waxaan leenahay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka abalajeesan siinaynaa abalajeesan siinaynaa abalajeesan siinaynaa arrintaas idima qabato idima qabato idima qabato laakiin u dulqaata waa xildhibaanadiinni oo xanaaqsane waxay ka xanaaqsan yihiin aanu kuma ogin addukaa og anaga laakiin waxaan kor u sheegaynaa oon kor ugu dhawaaqaynaa say dadku u maqlaan una faahfaahinaynaa say dadku u fahmaan inaynan waxaas aanan raalli ka ahayn waxaas aynan maaragtay aanan ogeyn aan beenaynayno koraan u beeninaynaa koraan u beeninaynaa inaanan nin madaxweyne ku-xigeyn lahoo oo dowlad madaxweyne ku-xigeyn ka ah waa shabaab in la yidhaahna aad arrin u xun wa arrintaas waa ka xunnahay waa ka xunnahay waa ka xunnahay qof qaldamayha sheegay qof xanaaqsanha sheegay waxuu ka xanaaqsan yahan anu kuma naqaan dabcan sharcigaa lagu kala bixi doonaa hay la tahay hirshabeelle u dhexeeya sharciga hirshabeelle u dhexeeya iyo midka islaamka ayaa lagu kala bixi doonaa han u malayna waxaan leenahay siiba madaxweyne ku-xigeenka si gaarahan u raalligelinaynaa arrintaas waa ka raalligelinaynaa in hiiraan qof jooga ama xildhibaan jooga ah oo waxaas ku sheego madaxweyne ku-xigeenka arrintaas raalli kama nihin waa ka xunnahay abalajeesaan ka bixinaynaa abalajeesaan ka bixinaynaa abalajeesaan ka bixinaynaa waa mahadsantihiin